السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي قبلها كحرن ولا هي سناب شات كيجا يوتيوب كيجا إنك سو سناب شات كأو بدنا هاي يوتيوب كمدي يقدم بيسي إن فيديو أو هلا سوق لي إن قفك مركا ولا بعيا لو قلب ميو عاد ولا الكرا طبعا وها هدو إلهي قفك وقدره بس أنا وداله إن فيديو جالس أيه واحد بدنا يجسوا جيسين إن أنا شهر جريه واتقانا مكاشقين يسد ولا بدنا كوتاجين هواي عتهاي mararka qaar isku markaa keenayso laakiin wax niideeda ku jiro in la shargareeyo ahayd run ahaantii qofka marka uu rabo inuu caado u dhalo waxyaabaha uu sameeyo waxa kamid ah in uu raasado dhakhtar ku support gareenayo oo waxa adiga arabtid aad la shargareysid ku caawinayo hadii aad dhakhtarkaas heshid markaas waxyaabo badan way ku fududaanayaan inta badan qofka qaar dadka qaar qadar ayaa loo qalaa oo Ilaahay baa u qadaro dadka qaarna wadnaha dhaca la dhaha waa qaliinka lagu la ordaa runtii aniga laba ciyaal hore lagu qalay dhakhtarkii wuxuu ugu dhacay kafkaaga yar laga yaabo in caadi u dhashid noloshaada inta ka dhiman soo marka dhakhtarkii magaalada ka guuray dhakhtarka la raadsaday oo feedback hal dheer inaan sameeyo waa la tashtay waa weydiiyay waxay tiri caadi waa u dhali kartaa laba qof lagu qalay waa ka dhaliyay marka anigana waxaa is dhahay dabcan riyadaas ma sameyn doontaa waxyaabo badan ayaa jirtay dawladeeda labadeedii ciyaal hore lagu qalay iga faa'iideysay aan sameeyay ma sha Allah tabarakallah oo isaaciday waxa kamid ah hadii ay heshid dhakhtar ku caawiyo kula shaqeeyo ku support gareeyo adigana ay support gareysid ay socotid number 1 socodka ah marka 2 weeks ay gaartid ina active ahaatid ina socotid ina baagyada aadid ina gym aadid ina treadmill ku socotid laakiin is ilaalisid dadka qaar isku mid ma ahan dad waxa jira markay 20 weeks iyo 10 weeks ay gaaraan socodka markay bilaabaan dhiigka furmo kalaan hadda gabadheedu ugu horeysay marka 13 weeks aha dhiiga iga furmay almost bed rest igliya laakiin qadar ahad qofka waxa laga rabaa haduu uu isaga is ogyahay jirkiisa uu ogyahay xaaladiisa uu ogyahay caafimaadkiisa uu ogyahay socodka dhaqso ee loo bilaabi karaa ma sha Allah ina socotid inaadan wiilkayga labaad posterior baby noqday dhahan in aadan kursiga saa ugu jiifanin ina balloon ay isticmaashid oo balloonta aad ku fadhiisan kartid inaadan labada lugood isdaba marsan waxyaabo badan ay sheegtay ay sameeyay socodka kamid ah waxyaabaha healthy baa cuni jiray si aan ilmaha ay ugu korin marka ma sha Allah number 1 socodka ah number 2 ina positionka aad u fadhiisanaysid ama u jiifanaysid ama inkasta wax kasta ee qadartaada islaam aan nahay socodka balloonka ina guriga shaqo badan ka qabatid qofka doo shaqeeyo uu soconayo wax kala extra ma baahno ina waxyaabo healthy cuntid cuntooyinka qudaarta ah cuntid adii iska shaqeysid hurdo fiican ah heshid kadib marka aad soo dhawaatid inaad exercise sameysid ina squat badan sameysid in aad ma sha Allah more active ahaatid meesha lagu gaaro 30 weeks kadib ma sha Allah video in la soo share gareyn doono waxa jira waxa la dhaho midwife dadka waxa ay ani labadeedii ciyaal gabadheedii biyo iga dilaacay 41 weeks aan ku dhalay laakiin fool ay qaban weysay qofkaas oo kale baasha fool kule sida lagu daray wiilkayga labaad sidoo kale waa laga fooliyay markii saddexaad si natural ayuu Ilaahay fooshi iga keenay waxaan isticmaalay baasha la yiraahdo midwife brew biyo iga dilaacay inkastoo wax waqti badan aan isticmaalay ayadana videogaas waa in la share gareynaa waxyaabo badan waxa jiro aan soo sameeyay acupuncture kale aad ay ku caawinaya massage kale aad ku caawinaya biyaha kulul gymka dabaasha aad ay ku caawinaysaa ina exercise badan sameysid aad ay ku caawinaysaa cervix-kaaga iyo muscles-kaaga waxa soo dhan u fiican tahay waxyaabo badan ayaa jiro oo ku caawin doona haduu Ilaahay raada in la soo share gareyn doono video lagu ma dhameystiri karo waxa laga yaabaa inuu dheeraado qaar ay boring ku dareemaan insha Allah Ilaahay ma had iska leh waqtigiisa iyo maanta ii qadaray in la share gareeyo muddo dheer kadib insha Allah waa in la share gareyn doona videoyaal badan waxyaabaha sameeyay waxyaabaha ay saaciday qaabka everything waana ku faraxsanahay gabdho badan waxa jiro waxyaabaha aan sameeyeen oo ma sha Allah uu shaqeeyay dhakhtaradeyda ku xiray hadaa magaaladeeda degan tahay u baahan tahay ina xitaa dhakhtaradaas kugu xiro waa kugu xiri karaa it's good qofku inuu haysto qof supportive ah oo support gareenayo oo wuxuu rabo u hagaajinayo insha Allah videoyo badan aan la soo share gareyn doona haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa gabar kasta oo xaamil ah oo rabta inay try gareyso laba hore lagu qalay gabar aan friend aan nahay Minnesota ku nool waxa jirto oo 3 lagu qalay kii afraad caadi u dhashay qofka haduu dadaalo Ilaahay isku xiro
way u hagaagaysaa. gabdho badan waxaa jiro tiim aan isku xiranahay oo maasha allah oo ka sheekaysano waxyaabahaas. markaa hooyo tahay hooyo kala raadinaya wax ka faa'iidaya hadday tahay cunto ilmaha koriimaha hadday tahay hooyo la qala hadday tahay. gabdho waxaa jiro Minnesota ku nool oo markaa ani wiilkayga aan caadi u dhalay ayagana iga dambeeyeen ila soo xiriireen u faa'iideeyay dhakhtar ay aaday oo Minnesota ku yaalo dhakhtarkii caawiye caadi u dhashay 2 hor ayadan lagu qalay hadaa xitaa Minnesota ku nooshahay gabdho kale jiro aan siiyay dhakhtarkaas oo ku siinaya. marka in la saacideeyo in gabadh kale walaasheed wuxuu shaqeeyay u sheegto waa wax fiican moor aad ka caawiso adna moor Ilaahay ku caawinayo. hadaa Minnesota ku nooshahay dhakhtarkaas gabadhaas uga guurtay magaalada ayadana Ilaahay khayr siiyo. waxay tiri nasray hadii Ilaahay idmo aniga dhakhtarka uu caawiyay waxay tiri waxaan fuulanaa 6 bari ولما دقدقين مركا هدارة ستتخاطر تدقق عاوسو ويكساعدينayaan ilaahayna aad tala saartid. hadaa Minnesota ku nooshahay dhakhtarkaas oo ku haya hadaa Ohio ku nooshahay sidoo kale dhakhtarkayga ku xiraya adigana aad daashid maasha Allah ugu yaraan magaalada deganahay 40 gabdhood caadi way uga dhalisay dhakhtaradeyda. marka maasha Allah waa jeclahay wixii aan ii shaqeeyay inaan gabar kasta la share gareeyo. waxaan leeyahay fiidiyooyin badan aan la soo share gareyn doonaa inta kuma koobi doono gabar kasta uur leh oo hore ilmo loogu qalay walwalsan. waxaan ku rajeynayaa khayr waxaan ku rajeynayaa niyada furtid waxaan ku rajeynayaa inaad dadaashid hadaa seexatid wax ku mashaqeynaya laakiin hadaa dadaashid dhakhtar fiican kaashitid Ilaahay ku fududaanaya. YouTube kan hadii aad ka hesho waxaan sheegayo ama waxa idin la share gareeyo insha Allah si walaalo kale uga faa'iideystaan. anna waxaan rajeynayaa in waxyaabo badan inaan la soo share gareeyo cuntooyinka cuni jiray exercise-yada sameyn jiray waxyaabahan qabto dhan details ku aan soo share gareyn doona. waxaan kaga tagayaa caafimaad iyo gabar kasto xaamil ah ee hore loo qalay ama kuwa hadda xaamil ah waligood caadi u dhali jiray xataa ayagana waxaan rajeynayaa Ilaahay inuu idin barakeeyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.